Weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Junior Moraes oo u dhashay wadanka Brazil laakiin qaatay dhalashada xulka qaranka Ukraine ayaa halis ugu jira in lagu qasbo inuu qoriga qaato oo ku biiro askarta reer Ukraine ee dagaalka kula jirta dalka Ruushka. Junior Moraes ayaa laga joojiyay inuu dibadda uga baxo wadanka Ukraine waxaana jirta suurtagalnimo ah inuu ka mid noqdo difaaca qaran ee dalka uu dhalashadiisa qaatay isla markaana uu xilkiisa u ciyaaro. khamiistii ayuu madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu amray in la isku dabarido muwaadiniinta dalkaasi oo ay doodoodu u dhaxayso 18 jir ilaa 60 jir waxaanu mamnuucay in dalka ay dibadda uga baxaan si haddii loogu baahdo qoriga u qaataan oo ay dalkooda u difaacaan. Junior Moraes ayaa sanadkii 2019 wuxuu qaatay dhalashada Ukraine waxaanu u ciyaaray xulka qaranka dalkaasi oo u saftay 11 kulan hase haatee waxaa laga reebay liiska xidigaha ka qaybgalaya tartanka qaramada Euro 2020 ee sanadkii hore. 34 jirkan ayaa la sheegay in loo diiday inuu dibadda uga baxo dalkaasi sida uu sheegay Renato Souza oo ah wariye ka tirsan idaacadda Portal 7 oo qoraal uu ku daabacay bartiisa Twitter-ka ku yidhi xidiga reer Brazil ee Junior Moraes ee weerarka uga ciyaara Shakhtar waxaa laga mamnuucay inuu wadanka ka tago. waxa uu haystaa baasaboorka Ukraine waxaanu ku jira da'da militariga waxaana suurtagal ah in loogu yeedho dagaalka Ukraine kula jirto Ruushka sida uu ku waramayso warbaahinta caalamiga ee CNN. kooxda reer Ukraine ee Shakhtar oo ka dhisan gobolka Ruushka madax banaanida u aqoonsaday ee Donetsk ayaa waxay xiriir fiican la leedahay ciyaartoyda reer Brazil waxaana u ciyaaray 30 laacib oo u dhashay Brazil tan iyo sanadkii 2002 markaas oo Bernardo uu noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ay ka keenaan Brazil. xidigaha reer Brazil ee u soo ciyaaray waxaa ka mid ah Fernandinho, William, Fred, Douglas Costa.